garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle Ismaaciil Mire International Airport waxaa maanta ka soo degay wafdi ballaaran oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Khaatumo Cabdalle Cagalule isla markaana isugu jiray xildhibaano iyo siyaasiyiin ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel waxaana wafdigan oo ka soo duulay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana goor gaaban soo gaaray Buuhoodle ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle ex-wasiir Axmed Maxamuud Doolaal xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Buuhoodle uqaal iyo ururada haweenka ee Buuhoodle madaxweynihii hore maamulka Khaatumo iyo madaxweyne ku-xigeenka iminka maamulka Khaatumo waxaanu leenahay soo dhawaada halka gurigiina ma timaadeen gacmo furan ku soo dhawaadaan leenahay insha Allah wixii xoga iyo wixii wara iyo wixii kale aad noo wadaanba fadhi baynu soo wareysanayna soo dhawaanadaan leenahay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay madaxweynihii hore ee Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo wafdigani kamid ahaa بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أخيارت شرفت له حلال كلا دون يسوق جرتي هدي بكذا اللي برشاد الرير عيميل أما مقال مدح ذبوه اللي كترسن نسود ويسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمر وقالوا كنبي ويسمى دقن كلها يجريان ولي قال لك وسمى قول لي هول بقى سعرت هالكا waxay ahayd meel wanaagsan maraysa dawladda federaalka iyo loo socotay hadaan reer Khaatumo nahay maxay ahayd hadii la ku soo ogol yahay meel wanaagsan imka maraysa taantaasaan ka yiraahdo hadii la ku soo ogol yahay waxaan rabaa inaan eray kale ka yiraahdo maalin wadalka kan saxaafadda waxa ka baxday hadii bidkeeda leeyahay war keesi ka sii daayay war xukuumadda iyo shacabka reer Khaatumo midna u danaha ma ahayn waan maqlay hadii bidkeelay xukuumaddu iyadoo hadii bidkeelay raali gelin ka bixisay waxa ay oran lahaa waxay u dhaartay wasiirka amnigu ahaa wuxuu u dhaartay dalka kan xoreyntiisa iyo difaaciisa inuu ku soo duulo ma ahayn qodob aan maxay ahayd la iska cafin karin buu hadii bidkeelay jabiyay waxaan oran ugu taaqalaa madaxweynaha Khaatumo hadii bidkeelay mar hadduu qodobkaaba jabiyo tii uu dhaartay inuu muxuu ahaa hadii la ku soo ogol yahay difaaca xoreeyana difaacana wili ana ku soo duulaya kuma sii jeedo kuma sii hayn kara Khaatumo inuu xilka ka qaado hadduu ka qaadi waayo xilka baarlamaanku inay kala noqdaan bal iyagana ugu baaqayeen inay kala noqdaan muxuu ahaa hadii la ku soo mali kalsoonida ay kala noqdaan haddii kale dawaan la qablaa weeyaan ra'yiga dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Khaatumo Cabdalle Cagalule dhammaan dadka reer caymeed ee garoonka nagu soo dhaweeyay Ismaaciil Mire Airport aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu waa maqnayn idinkamaanu maqnayn waa idin maqnayn idinkamaanu imana waanuna idin nimi wixii fikir iyo talaan la nimina waa soo gudbin doonaa haddii alla idmo shirar ballaaran baan qaban doonaa haddii alla idmo oo ku wajahan midayn iyo xoreyn iyo dadka kan maxaan ku radaa reer caymeed ama reer SC ama Soomaaliya Sanaag iyo Caynba daal badan baa ka muuqda wada dheer oo hirigay mareen waa la mariyay insha Allah mid raysay mari doonaan hadii Allah wada leedmo aad iyo aad baan idin salaameynaa shir baynu isugu imanaynaa aniga oo ku hadlaya afkooda oo dhammaan bulshada reer Buuhoodle waxaan leenahay soo dhawaada dhulkiina baad timaadeen ku soo dhawaada isagoo oo nabad ah iyo garoonkiini iyo dhulkiini iyo degmadiini Buuhoodle Cabdicasiis Aadan Jaamac Telefishinka Caalamiga SBC Buuhoodle